السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وناكسن سولو دواذا channel كادي جلس عتيد وياس منتينا channel reaction ذني هرا لقى بلعبة يا مانتا وحكوا سولو دواتان برعاوي reaction كبحنا يا دفق إيو مسيس وول. خلاص والله كويس دم بيولالي ها لجك حالتي سكور واشيدايا لغو غاري هدارو امبلاس وعنو ولا سو غاري سقار كوري كغا جيرتا نو شيغو وريا برعاوي كانوا أمدينا معها ومحا نحشك صاري نكو انتا سوبر در اللي اجيو اللي حاد اللي اجي هاي ما waxaad u quusinaysaa dheefiq waa tabcaan in tabcaan ku leeyahay ma duubnaantada ka dada oo taasi waa sheeko kale barcaawiyo waad ku taraartay wad gacan togaalaysan ninkay ka daadii kada waa sidee xaalku de wiil Soomaaliyeed oo adka aweeyani ma bari qadrun moodo war wiil shahaamadaanu dumin saano bereeqda waxay nibeen haamadi dumin war xaal qaata iga waladin biri qo ahayne xaal qaata rag baatihiine waliba dhaqan iyo asluub lagu koriyay waan idin qiraya anigu aan iska keen dagaal laakiin wallahi marmar waa idin qiraade bahasha waa idin qiraa soo beedin arag waa idin qiraa bahasha marmar karog oo hadana saar waxaynu soo qaadanaynaa ninkii xaliye ahaa talo xaliye muxuu u jeedaa waxaanu soo qaadanaynaa xaliye war xaliye maanta bal wuxuu ka hadlayeen wada aragno khadiija qasqaska dad iska joojisid jiimkana aadaad cuntada iska yaraysid abay dhaga caddaanka xataa adaa ka wata khadiija markay weydka iska ridda ayla khadiija markay cuntada iska yaraysid ayla khadiija markay afka dheer joojisay warka yarayso khadiija sidoo kale waa qurux badan tahay laakiin weydkaas ku dhibaya iga habay weydkaas cuntada iska ilaali jikada iyo adigu kala dhamaada khadiijo don't cry yo aniri boashayo ولا بلا كدكتي حليو وريا حليو شو نوبا نبع وانا جعليا وارنتي انتو شاغا خديت هدا ويدك iska rido qasqaskana iska deyso waa tala fiican jikadana ay soo kala dhamaadaan waa tala fiican laakiin hoos badna ugu gacan togaaleys idinka laftirkiinu jikada kala dhamaada dacaloosha kuusan rida xalima yaa arkay na xalimooy walla xaliya inaga badiyo daaqadu inaga shuuday horta exactly pointi aan xaliya ku raaco maanta waa arkay intuu inagu yidhi waa runtii ilaa wala kala gar qaataaye mindi ku taag wax shaqeynay wariya xaliya show ma sii foga war xaliya ma sii foga u show amoodayo inta ka sii liitay xoogaa inuu muddo qabasho leeyahay xaliya ma foga laakiin wuxuu sheegay waa runtii laakiin iyagu ma inagula jiraan weeyaan ma inagula jiraan nimanku yes way inagula jiraan laftirkiinu qasqaska waa barateen laftirkiinu weydku waa idin fulo waliba mid foolxun baa idinka idin fulo uurka idinka koray uurka iska soo jira please six bag iska dhiga please anaguna qasqaska waanu daynaynaa jikadana waanu ka soo dhamaanaynaa darooga dhexdana waynu bartaasina ku baroobaysanaynaa dhexda bartamaha aynu isugu nimaadno marka idina dee war hadda ma garatay marka idina aad si soo canaanataan soo jafjaftaan murqayr yar oo kuuskuusan iyo qoor qurux badan iyo luga dhisan masalayaal dhisan marka nala hortimaadaan oo uurka yar taangiga aridaan oo mijaha yar dhudhuwanaga yaa dhistaan annaguna dee waanu soo kala dhamaanay inkastoo qasqaska nala wadaagtiin horta waynu ka simannahay inaan isku cayno maaha uurtaanginimada waynu ka simannahay qasqaskana hadda waynu ka simannahay intiina badana waad marsataan ilaahay Soomaaliya kimikada ha idin soo dhibkay leedahay oo ha idin fayhansiiyo kalarkiina quruxda badan hadar waaba lagu indhabeelay khalaas wallahi alaab la ii soo diray oo waliba lacag qaali la iigu soo diray qashinkaasna hadda dhex dhigay rabbi baan ku dhaartay because waxaan ogaaday in waiting ku jiro anaga kareem waiting leh beri horaanu kala tagna beri horaanu kala dhimana kareem waiting ku jiro kaas 7 sano ka hor bay igu dambeysay mar raba inaan ismariyo mid walba markaan ismariyay aan ogaaday inuu waiting leeyahay ayaan meel dhigay oo faraha ka qaaday waitingka iska ilaaliya qasqaskana iska ilaaliya waa sun halis ah waxaad jirkiina ku duugaysaan dhaldhalaalkan waxba ha u jeedina haarahaygaas oo kale ka doorta filterka ay qarinaya bahala igu yaala qurux badan ma filterkiina iska isticmaashaan anaga balwadeedu waa filterkan
filter kaasi globin yar bay siinayaayo haarihi way ku dhex yara qariyaayo I love filter kan laakiin no more qasqas jirkayguna wakaa wuxuu saa isugu egyahay gacantaydii jirkaygu la kala duwanaan waayay qasqaskaan u gooyi waxaas anigu beeri horaan u gooyi beeri horaan horu maray xaliyana inama nabacaba show cilad kala jirta xaliye ayaamahan waad iska soo shaqaysaayo waxaan ku arkaa murqa yar yar iyo wax keenayo dee waa inaad xeel keentaa inaad eero waxa weeyaan abuurista ilaahay laga hadli maayo laakiin qofku waa inuu xeel keena isbedel keena in Cabdi Qasaare iyo Caasho waa inay isbedelaan Xaliimo iyo Cabdi Qasaare waa inay isbedelaan dulaysti iyo qoyan waa inay isbedelaan baahsan tan sanad walba dhasha ilma duuf weyn oo dayacan baahsan iyo bi'iye waa inay isbedelaan 60 qof aynu meesha uga soo wada jeednaa isku aragti baynu exactly hadaba anigu waa ku sitaan kastood bakhayl tahay bakhayl wad ka tagtay dhabcaala tahay bal horta sheekh ku karbaashayaan rabaa inaan soo qaato urunta ku karbaashaya bal horta sheekhan aan ku socono ku soco bakhaylku sidiisaba waxa la yiraahdaa bakhaylka qofka ah dhabcaalka dhabcaal iyo bakhayl farqi baa u dhaxeeya bakhaylka waa midka jeebka adag gacanta adag dhabcaalku laakiin waa generaal waa ka sareeya kaas xaliya waa generaal sareeyayo isagu inuu wax bixiyo daa mid wax bixinaya hadduu arko caloosha lagu dhufanaya exactly xaliya dabadaad iska ridaysa maalka gubaysa oo arwaa ku sidee waa qaraacmaya hada isagii ma waa muslim ilaahay oo kale wax bixinay naftu waa ka dhaqaaqaysa wallahi waxba ka dhacay exactly waxba ka dhacay ku soco ala bakhaylku sidiisaba laba shay uu adduunka u jecel yahay illa waa inagii wuxuu ugu jecel yahay wax adduunka nafi ku jirto hal naf bu saaxiib leeyahay hal naf buna ugu jecel yahay haye ma taqaan nafta waa naftiisa nafaan ahayn kama danayste naftiisa nafaan ahayna saaxiib lama aha الله بخيلو دبعال باكا وين بالي exactly حليو kaas waa lagu soo qabto anigu soo qaban wadaadkaas ku soo qabtay in ragad ba ku hela ku soo laalaadiyay laakiin inta yaro dabcaalnimada abad ciilal ceeb leedahay iyo in yaro afdheeriya laftirka waxa tiri xaliim haday afdheeridana deyso adiga laftirka hadda istusnimada deysid iyo afdheerida oo aad Cabdi Qasaare noqonin waa lagu wadan karaa baqaylnimadan aad iska deysid dabcaal sheedan ba beri baan waxaan ka yaabay gabadh aad u gacan adag oo dhabcaala teetana waxaan oran jiray haddii labada gacmood laga jabiyo afkay ku qabsanaysaa xaliya waa nooca haddii labada gacmood laga jabiyo afku ku qabsanaya waxaa la bakhaylkuna baa la yidhi waa cadowullah qofka bakhaylkan waxa bixin waa cadowga ilaahay baa la yidhi xaliyo laftirkaagu haddaad afdheerida deysid iyo dalaqda iyo shaydaannimada iyo istusnimada waa la iska kaa wadan karaa weydka laftirkaagu هذا البريهم وكو أركيو ودرد وإذا كوجا عيا كوجا ميل حركة هذا مقير كوسكوسانيو قار يري صويا شو نينو صويا كذا بيرجع هوري واحد كيد رجع عير صوك عيا يقو قاضية اللي انتقل بينك الحية يقو قاضو لا جود في إن بخيل ماذا تسكديسيد ماذا نبى لغة هنكرين بابا هذا وقبطايو هوارك وقبطا بخيل عندنا مربطه قفنا بعالة عندنا مربطه وفرح الشيء دنجوي إنه ناقربتها ما jirta laakiin exactly waxaan kaaga marxaati kacaya in wiilasha Soomaaliyeed wiilal la mid ah aanay jirin runta hadii runta la ciideynayo ma sheegin laakiin wallahi wiilasheenu waa qaali oo wiilal dhaqan lagu koriyay aad u qurux badan dhaqanka quruxda badan lagu koriyay ma taqaanaa gabadha waa lama taabtaan gabadha waa lama caayaan gabadha waa lama dilaan gabadha waa lama xumeeyaan inkastoo markay guursadaan ay garaacaan oo inaan taa xeer ka dhigan ta kale ee dhaqanka gaar ahaaneeday Soomaali leedahay nin Soomaaliya suuq gabar ku garaacaya ma jiro waargacanta la ku gooy gabadha ka leexo xaalna dhakada waa looga tuuri jiray dhaqanku meelna waa ka fiican meelna waa ka xun yahay dhaqanka Soomaalidu waxyaalo badan uu ku xun yahay waxyaalo badan uu ku fiican yahay laakiin wiilasha Soomaaliyeed waa wiilal diin lagu soo koriyay dhaqan lagu soo koriyay xaqiiqatan oo ixtiraama dumarka sida guud ahaaneed iska daa waxyaalaha kale waa laynaga liitaa adduunka kale hadda dhaqamadiisa u fiirsatid keena ay qarsan noqonaya faaraxeenaas ma aragtay faarax ma jabaasto wax dhaaman anigu ma garanayo wallahi wax dhaaman ma garanayo marka runta aan ka hadlo adduunkan oo dhan dhaqan uu leeyahay adduunkan oo dhan dilku waa ka jira adduunkan oo dhan dhibaatadu waa ka jirtaa laakiin faaraxeena wax inoo dhaama garan maayo in badan oo dhaqan xun waa ka buuxdaa laakiin inta waa laga baandhaynaya
taas halkaasaan kaga soo gudbayaa xaliye iyo sheekadiisii halkaas ayaan kaga imanayaa shiino culay oo xashkii tagay oo u soo duceeyay asad xaajiyo ilaahu ka aqbal walaalkay asad xaajiyo waa ku soo duceeyay ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu caafimaad taama ku siiyo mar kale tuso adoo cagaha ku soconaya wax kasta oo riyaa aan leedahayna oo ku rumeeyo wixii muraadkaaga ana isagoo aan macsi lahayn oo ilaahay ku siiyo walaalkay ilaahay ku barakeeyo ilaahay ku barakeeyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay faataxada iyo aamiinta u soo mara insha Allah walaalkay asad xaaj jazaaka Allahu khayran baan ku leeyahay idinkuna faataxada u mara wiilka yar dhalinyarada ee quruxda badan ee shabaabka ah inuu ilaahay riyadiisa u rumeeyo inuu ilaahay lixaadkiisa u soo celiyo inuu lagu hiiso dib ugu talaabsado isaga iyo intii kale wax tabanaysa faataxada inuu wada marno shayna wadna ilaahay ka abaal mariyo waxaan ku arkayay adigoo dab casar iyo rag culus casuumayo yaa adduunyadu ay saa isugu fadhido ayaan arkayay bal sheekh Shantaay oo reaction ka bixinaya aamusa wiilkii dabada gabadha saaray أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهو نون حريصو ور أخلاق دي وادمت ور دينتي وادمت ور دقنكي وادمت ور يارهن waxaan soo qaadanaynaa abti liibaan oo la isu garab dhigay Naciimo Jookar iyo Farxiyo Kabayare ku soco horta labadaas gabdhood teebaad siinaysaa inay tahay lajanimadana aan ku siinaysaa dulqaad reer magaalnimo xadaarinimo bulshada dhaqan yani inay bulshada dhaqanto social ay tahay dabeecad labada gabdhood waxaa waaye Farxiyo Kabayare ma joogto Sukri iyo Naciimo Jookar Farxiyo Kabayare iyo Naciimo Jookar ani waxaan qaadan lahaa Farxiyo Kabayare okay labada maxay tahay Soomaalidu ruufiyaan qof bay waxa soo dhigayaan laba qof oo koranaya kala dooro hadduu qofkii doortana su'aalay si daba dhigayaan sababtoo ah waxay ka raadinayaan qof aan haday arkaan wax xun iyo deeqin lagu hafaraha u galiyaan qofka bilaaadankii laba qof oo labaduba cajiiba oo jilaayala ama fanaaniina ama waxay doonayaan noqdaan hada labadan gabdhood gabadhna waa jilaa gabadhna waa fanaan wuxuu fanka soo wada hoos galiyaan qof ba dooqiisa noqon kara qasab ma aha inuu qof doorto midda kale wadareemaya ninkaas hadalka wuxuu ugu celinayo nacamti gabadhan baa ma jeerteena maxaa gabadha ma jeerteen u dooran weeday uu u dan leeyahay ani ma raba hadalka inaan ku sii dareyntaa laakiin waxaan meesha ka maqan labadan gabdhood horta liibaan way u sameeyeen marka runta laga hadlo Farxiyana gabadh baa dhashay Naciimana wiil baa dhalay gabadha iyo wiilkan anigu mar walba gabadha baan jecelahay idinku laakiin gabadha waad yastaan oo gabadhu waxay dhashay shisheeyaad ka dhigtaan laakiin waad soo dhaweysataan wiilku wuxuu dhalay aniga deena shisheeye iga dhigtaan anigu ma jeclaanayo hadii kabaqaad leedin noqon jiray oo ay naagyaasha qaar kabaqaad idin yihiin ha wiilka dhalay gabadhu maxay sheegaysaa waa shisheeye anigu ma ogoli gabadha ilmaheedu waa xiga isagaana iga xiga cid walba gabadhu waxay dhashay ayaa iga xiga waana idin sheegay sababtu waxay tahay ilaahay xaq ah idin tuso Soomaaliyeed dad xaq arkaya ma batihidin sidaan dareemayo waxaan soo qaadanaynaa bal qolo kale suga Carlo Garoboya ayuu Carlo Garoboya leeyahay ninba waxa kule أنا أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم daaqada maxaa ku geeyay afdheerideeda ayuu Carlo Garoboya ayaa leeyahay inaan ku arooso miyaad u baahan tahay baa lagu yiri abaalkiisa emotional damage adaa isu keenay runta marka laga hadlayo afdheerida Carlo afdheeranaanta ay garanayaan bay waxa weydiinayaan oo ay ula tagayaan dhaqan xumada war ninkan nin dhaqan xumada loola tago ma hadee runta marka inta kala hadlo meel ku saaraya wallahi billahi meesheedu saaray abaalkiisu ka waraabiyay 37 buu wadnaha kaga siiyay qac inaba
كوفيسيون marka waxa weeyaan adaa doortay walaalo in lagu dhufto 37 ee Allah ku naxariisto anaga waxa kaama oran karno Soomaaliya qabyaalada iska daaya xumaanta iska daaya kala gurgurka iska daaya dadka aad shaydaanka ku tihiin iska daaya oo dix wal qolqoleeyeen I don't know waxa dadka dhex qolqoleeysan waxaad u jeceshin inaad qof kale wax uga soo abuurtaan ma aqaan aniga macnaha marka ilaahay xaqaheedan tusay dooranaya niman yahow iyo naaga yahowba hada naagaha qaar ba ka xanaaqa I don't know waxay naagaha uga xanaaqaan naagnimadeeda ka xanaaqaysan anigu waan ceebahay anigu naagnimadeeda waa ku faana waana jecelahay ilaahay naagnimadeena haydan tusay qiimaha ay leedahay iyo quruxda ay leedahay wiilasha Soomaaliyeed caanka wala isku qaato qurux ku dhiigle oo ku dhagan muuqaalkan waa mar hore aan maleynaya ku dhagan CK balan dhageysan hadda fiir reaction ka bixi shan saac kadib fiiradi maxaan ka dhayaarinka qurux ku dhiigle qalab muu iga gacay war hadduu dadaalo adkaysto storygiisa snapchatkiisa fiiri aniga baa views lagu raadina horumarkii laga xun yahay adaa dadka horumarkooda ka xun fiiri barankii musqush iyo barankii kaalada asameys inta daawatay fiiri barankii inta daawatay fiiri wax macquul bulsho laga gadi kar kaamiro ka hortaalo TV amal u daawanaysa aragta bulshada inaa ugu sheekayso baranka waa qol yaro waag ya qabri abran ku dhaxsameynay kaamirada khash nalka ku kordamay waxasan kaaga aamusanaay walaalow ilkaas waa aroosay si waa gaabiyay war bilaaye anaga aragnay wariye isku balamiyo kuwa afka isu galiyay tulidu qaaday sharma boyna Mareykan soo u tagay waa kibri ya bishii hal heesu soo qaada waa kibri sharma boy ilkaas nolol kuma noqdaan qolkan ka dhaxbax qeyrka wax la qeybay war public brand samay bashar war balkan karbaasho waaba la garto wad seysane maxaa kibirka sharma boy ka galay inaga bila aragnay sharma boyna Mareykan soo tagay waa kibri awal bariiska siin jirtay kaligay baan yaabay eedo bariiska siin jirtay awal sharma boy inaga wax aragnay nin baad saysateen Soomaalidu waa dad faduuliyeena moogta daf bay ku soo oraneen iyagoo shanta farood ku gula dhex jiro calooshaada walaaqanayo un baad arkaysa oo mid baad haysatay maxaa kale ku laliyo adigu mid kale dib badanida marba qof baad haystaa markaan ku arkabe adigu dagaal badnida maxaa adiga cilaaw ka dhigay waniyo dadka xishood baan ka oran lahaa aniga laftirkeyga waan ka xishoodo ana ismax ka badaynaye saas xal ma haday qurux ku dhiiglo garan maayo anigu waxa sharma boy hadan ugu talaabo waa kibirkiisa ma bariis baa siin jirtay ugu dawrsan jiray talo gurigaaga hoos fadhiyay Soomaali say isugu qaldamayaan ma yaqaaniin dadka ay dadka u galaayeen hadaan ku dhawaad kibirtay ka war soo afdheeri ma hay dabdaro do Soomaha qalad baan arkaa qurux ku dhiiglo adigoo CK aad seystaan CK karbaashisid inaad sharma boyna u giftado ku tiraahdid waa kibri hadii qaar badan ay dhahaan islaantina weyn maxaad ka rabtaa aweelka yar qurux ku dhigla maxaad ka rabtaa soo tiraadana isaga laftirkiisu wiilka yar sharma boy wuxuu ka rabaa intuu ka weyn yahay baa ka weynahay berigii hore caruur ilmaabtayada iyo qofka dila aniga iga yar iyagana ka weyn intaan soo dilo ba markay habartii dhashay soo qaylisan ku oran jiray maxaad la qaylinaysaa intuu kan ka weyn yahay baa ana ka weynahay hadda inta ugu khaldantay baan anaka ugu khaldamay ayno kala joogtaa la isku qaato kuwii qabiilku dardarin hadda xagga qabiilka hababa ula dhaha aniga sharma boy iyo qurux ku dhiglo ismeeyeen qurux ku dhiglo waa bayna aftigay waa ismeeyeen aniga labada way laakiin khaladka naceeba qof ku khaldamay ma jeceli dacariyeen ku soo lalin hadda ku soo lalsamaya nusqul raadso walaal nusqul raadso nagtan yasmin arsan yala dhahayo qacda lama soo raadsado Soomaalina waynu naho faduuliyiin baynu nahay waxaan la inoo dirsan baynu faraha saawla galna farax kaftan bahees inoo keentay faraha saawla galna daf Soomaalina faduulnimada u nahay laakiin waxa ka xanaaqay qof baad saysateen qof kale ina u gaftid ma waa kibri qofka bariis baad siin jirtay mise kabuu ku baalshaysan jiray qofka waa kibri ereygaas oo erey fool xun adiga hadii lagu oran lahaa waa kaaga qaylin lahaa waana kaaga helin lahaa hay isku gafina reaction iska bixiye isna karbaasha waxa weeyaan waxaan waa iska caadi لا عارقتها إلا قموقتها